laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam badiil buu keenayo yani dadku marka hore waxay ku walaaloobeen qabiil wuxuu u keenay diin ay ku walaaloobaan oo iimaanka dad mu'miniina oo alwalaa walbaraa mafhuumka la yiraahdo waxa lagu walaaloobaa waa diinta islaamka weeye sidoo kale nabigu garsoor cadaalad ugu keenay oo nabigu asaga wuxuu ahaa garsoore caadil ah meeshii markii hore qabiilka lagu kala baxayay waxa lagu kala baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga wuxuu ahaa garsoore markii dambana dawlad islaami ah uu nabigu keenay sallallahu alayhi wasallam marka intaas hadda wadankeena waxa ka dhacay waa dareemi karnaa dadkan leeyahay iyagu nool baa la gubay waa mid kamid ah calaamadii qabyaaladda sababta tii islaamnimada ma aha oo tii insaannimada ma aha qofka wadanka wada leenahay laba masiirkana waa wadaagnaa wadanba wada saaranahay yani wadankan hadduu la degona ya wayna la degaya haddii uu kacona wayna la kacaya dadka horba waxa laga sheegay moogtahay qolyaha maartay siyaarada ururiya ayaa reer baadiya u tagay wuxuu siyaaradii keen markaasuu ma bixinaya marka waxay dhahay cirka soo dumaaya wuxuu meesha ka gashaan waan ka galaya aniga inaad intimaa qabiil leedahay waa sharaf inaad maadigaagii hore aad dugsato oo aad dheegatona waa laftigeedu ceeb maaha waa shay dabiici ah laakiin shayga dabiiciga waxay dhahaa markii xadka la dhaafiyo ayuu cudur noqdaa xagga awood qaybsiga ama siyaasadda qabiilku aad u saameeyey waxaana la isu kala fogeeyaa ama fursadaha loo kala helaa sida loo kala qabiilada yani taa horta way saamaysay tan labaad xagga guurka isagana aaday u saamaysay iyo xididka yaa la xididaysaa wixii ka soo haray masalan ganacsiga dhibma kama jiro waxbarashadii dhib kama jiro darisnimadii in la wada dego dhib kama jirto saaxiibtinimadii dhib kama jirto in la sheekaysto dhib kama jirto casabiyadu waa xaaraan bijamiici suwariha yani dhinac kasta marka laga eego maxaa yeelay laanaha min dacwa aljaahiliya waa jaahiligi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu soo dejiyey dhibtii ugu daraa haysatay dadkii xilligaa joogay ee carbeed waxay ahaayeen inay casabiya qabaliya isu dagaalamayeen waana shayga shareecadu ay ka daweysay madaxweyne wasiiro xildhibaano agaasimayaal wax walba maanta waxay ku jaango-an yihiin qabiil bay ku jaango-an yihiin kafaaco la fiirin mayo yaa ku habboona la fiirin mayo casabiyada ma ka mid tahay an yuxiba rajulu qowmaha qofku inuu jeclaado tolkiisa casabiyada ma ka mid tahay nabigu wuxuu yidhi laa ka mid ma aha laakiin min alcasabiyati an yasula rajulu qowmahu calaa dulmi casabiyada waxaa la yihahdaa qofku inuu dulmi ugu kaalmeeyo tolkiisa qofku markuu dhimanayo hadduu u dagaalamayo man qaatala litakuna kalimatullahi hiya alculyaa qofkaasa shahiida qof walba wuxuu u dagaalamo wuu u dhintaa taa marka waa khatarta xagga diinta qofka macnaha geeridiisu iyo hadduusan dhiman uu noolaadaba dee dembi weyn baa ka soo gaaraya sababtaa waa fitno dagaal fitno weeye muslimiin ka dhexeeya hadafka u dagaalamayo nebigu wuxuu ku tilmaamay cama yani waa raaya cilmiya hadaf ma leh qabyaaladu dagaalkeedu maaha wax hadafka ku dhisan qofku markuu diin u dagaalamayo wuu garanaya meesha u socdo qaayo uu leeyahay ilaahay dartiis buu u dagaalamayaa laakiin marka uu qabiil u dagaalamayo wax hadafa iyo wax qaaya ku jirta aan ka ahayn caatifad iyo casabiyad kuma jirto taa marka waa xagga diinta laakiin khataro kaloo badan oo bulshada xaggeedana way jirtaa oo bulshada inay sii kala fogeyso oo tafaruqii ilaahay subxana wa tacaala uu looga digay ay ka dhalato dadka isku sii nacaan lagu sii kala fogaado waxyaabahaas o dhan baa ka dhalanaya insaanka soomaaliga rabaa moogtahay in si fiican karaamadiisa loo soo weeqay hadhowdiina uusan isagoo xataa PhD wata xagga cibaadadana wejigu madoobaday suu u sujuudsanaa fiiri yani aqoon ahaan PhD buu ka gaaray cibaad ahaanna maasha allah yani way ka muuqata ahaarta cibaadada cirkaasu maraya maasha allah yani haddana yani xagga qabiilka markii la fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu kan aan aqoonta lahayn ee cibaadada lahayn kaga daran yahay sababtu waa maxay liannu fii siqari yaraantiisii baa karaamadiisa lagu soo tuntay maxaa keenaya see karaamada qofka loo dilaa marka haddaa rabti qofka inuu karaamadiisu dhimato qabiilaysta noqdo hadhowdii qof aan dadka xaqooda iska ilaalin noqdo maxaa rabtaa karaamadiisa dil see loo dilaa waxa u horeeya waxa weeye waxaa ka mid a dilka qaylada habaarka yani qof bini aadam kabdacasa lala dhici jiray candhuuf lagu dhufan jiray oo qof keligiis qabyaalad wadi karaa ma jiro maxaa yeelay qofku wuxuu rabaa cid uu ku tiirsan yahay oo uu kiciyo weydii la oran jiray waxaa jirta qabyaaladana sideedaba mararka qaarkood wuu ka faa'iidaystaa qof laakiin qof ma wada baa la yiraahdaa qof wuu ka faa'iidaystaayo qofku wuxuu samayn karaa dadku ku kicin karaa isagoo ujeed leh dad masaakiin meel iska jooga isagoo ujeediis uu gaaro dadku ku kicinaya مثلا siyaasad buu rabaa inuu helo kursi buu maanta rabaa qof inuu helo
kursigaasuu reerka ku kicinayaa reer hebel baynu nahay kursi la-aan baan haysta intaasoo goor baa waa lana dulmiyey intaasoo goor baa xukunka reer hebel heleen maanta waa maalinteennii hadhowda kursiga markuu fadhiisto isaga keligiisa baa ka faa'iidaysanaya reerkii maba yaqaan waa meesha oran jireen qabyaalada dulman waayo ay dulman tahay marka magacii qabiilka baa kursigan lagu helay kadibna wax loogu qabtaa mararka qaarkood haddii doonto maba jirtaba waxay dhahaan karaamadu wax badan iyadaa ka celisa qofka inuu waxun ku dhaco sababta waxbuu ilaashanayaa يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي